Assalaamu calaykum. Gudannada saxanka weyn Afrika badankeedu waxay ka kooban tahay dun laablaabmay ama xoqmay oo ay u dhexeeyaan dhul sare sida godanka Al-Jawf, webiga Niger, godanka uu maro godanka webiga Niil ee Suudaan, godanka webiga Congo, godanka webiga Okavango ee Kalahari. Webiyada Afrika waxaa ku yaalla webiyada ugu waaweyn dunida oo ka soo daadega taagaga qaaradda iyaga oo ka soo gudbaya biyo dhacyo iyo hakiyayaal kuwaas oo aan ku fiicnayn gaadiidyada mara, laakiin waxaa laga dhaliyaa taban le'eg ee biyaha laga dhaliyo. Nasiib darro, webiyada Afrika ma gaadhsiisna meel kasta, sidaa darteed waxaa dhibaato ah in si waxtar leh looga wada faa'iidaysto webiga Niil. Webiga Niil waa webiga ugu dheer adduunka, ishiisa ugu weyn oo ah Victoria waxaa xagga waqooyi uga soo rogmada laagto la yiraahdo Niilka Cad oo soo mara Uganda iyo Suudaan. Khartoum Niilka Cadi kula kulmaa laagta loo yaqaan Niilka Buluugga ah, halkaasuu uga sii qulqulaa webigani waqooyi iyo dalka Masar kuna shubmaa ugu dambayntana Badda Cad. Laga soo bilaabo waa 6,853 kiiloomitir, waxaana maraa 11 dal oo kala ah Itoobiya, Ereteriya, Suudaan, Masar, Uganda, Tanzania, Kenya, Kuwait, Burundi, Jamhuuriyadda Kongo iyo Koonfurta Suudaan. Webiga Kongo waxa kale oo la yiraahdaa Zaire, waa webiga ugu gunta dheer caalamka, waxaa qotadiisu gaadhaa in ka badan 200 oo mitir, dhererkiisu waa 4,700 kiiloomitir. Webiga Kongo waxa uu badda ku daraa 38% biyaha ay webiyada Afrika oo dhami badda ku daraan. Webigu waxaa dhowr dal oo kale ah Jamhuuriyadda Kongo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Angola, Tanzania, Cameroon, Zambia, Burundi iyo Uganda. Webiga biyihiisu waxay ka soo shubmaan dhul badkiisu gaadhayo 4.1 bilyan kiiloomitir isku wareega. Biyaha mara waxaa keena biyaha badda, roobabka, dhul-badhaha oo sanadka. Intaas ayuu muuqaalkeenu nagu joogaa. Insha Allah kulanti kale oo wanaagsan.